markaanu Afrikada tagnay Tanzania iyo wixii hareeraheedaba ah baa waxaan aad ula yaabay qiso cajiib ah oo intaan safrayay aad ii muruga gelisay magaalo leedahay Kakabara 300 kilomitir bay u jirtaa Kampala meelahaas markaanu sii baxaynaba waxaana lagu yiri waxa ogaataan masjidka ku bixi doontaan ay tagi doontaan 2003 bay dan filay imaamkii masjidka tukinayaba irtada aan islaamku ka baxay aduu maanta xaflad iyo quraan iyo diin iyo dacwad iyo khayr baad ku dhex jirtaa anagu aad u murugsan baanu magaaladii tagnay fal amru kama qiil arintu waaba sideeba xanaad ula yaabay murug meelan wax ka bilowna ma naqaan jamaacadu waxaan ku warbal rag burcaaba ila socday markaas warkaayo waa warwarnay halkeen wax ka bilowna waxa ka sii daran imaamku ninkan imataana maaratay masaajidka tukinayay markuu diintii ka baxay sida kuma joogine qaaladii way ku dadaaleen fatahu lahu mad'aman min khamr udal khamriga baaba loo furayba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un udalka laftiisi baan ugu tagnay markaa ma ha sheeko oo u yeernay sijaadii anigu aan ku fadhiyay aan sitay baan ku fadhiisiyay saasuu iga soo horjeeda waxaan doonayaa inaan mandarka hor keeno adduunyada waxa ka jira hatta tu'addim ma ladayka si waxaan adiga kuula weynaadaan dadka diin la'aanta iyo gaalnimada ku dambeeyay saad u garatay ninkii saacadaan wada hadlaynay salaadii maghrib ilaa 9kii habeenimo warkiisii wuxuu ku soo gabagabeeyay imaam baanaha saajka ana tukinayay wa kuntu akhdubu fil a'yaad ciidahana ana khudbadayn jiray wa kuntu laakiin English bukaadle wuxuu yiri waxaan ku noolahay faqri waxaanu helaynaa imagaas maxaanu haynaa waxaan ku leeyahay albaabkii aad ka baxday ka soo noqo tascad fi dunya wal aakhirah maybi ayga diiday magaaladiina waa ka baxsaday maalintii labaad waxa la yaab leh inankiisii oo muslimana agtaydu fadhiya mar oo hibay soo qabanaysa mar waxaan haysteen ku farxabay noqonaysa mar qulubta ilaahay baa maamulo mar inankani waa inankiisii marka horta macallinow hebelow arintu aad haysato inaad weyneyso waa muhiim khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu waalidiinta kelmadan oranaya waxa weeye alxamdulillah tarbiyadu way ka muuqataa duco la daba taagnaada ilmaha suuratu ahqaaf li harimood bay sheegaysaa hatta ida balaqa ashuddahu wa balaqa 40 sana markuu qofkii 40 gaaray qaala wuxuu yiri rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya meel kale u socdaay ilaahayow nicmada aad igu nicmaysay i waafaji 40 iyo shukriga maxaa ka dhaxeeya daabaad gaadhay imaka mataan in badan baa ilaahay ku soo korinaya mahadnaq weeye aqligaagina waa taam an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya maxaa ku xiga waa ala waalidayya waalidkayga inaan u mahadnaqana ilaahay waafaji oo markii horeba soo lagaama doonahayn meesha waxa ku jira qofka 40 gaaray ama 50 waalidkii waa laba midun inuu sariirta ku ururayo in la qulaamiyo u baahan yahay iyo inuu xabaal galay ayay u badan tahay naam وعلى والدي waxa ku xiga waa amal saalihan tardaa amal saalihan sameeyo waqtigii awoodda rag iyo dumar bal joogay weeyaan ka farqabso weeyii waa amal saalihan tardaa meesha aanu socdaa marbadul faras waa maxay waa aslih li fi dhurriyyati hada marbadul faras ilaahu awlaaday islaahi weeyii awlaadii waa la dhalay pool yarna waa loo sameeyay shaqana way u socotaa ninkii daadiisi way si gurmaysaa waxa kada ilmihiina waa si weynaanaya yanmu garuun iyo orod iyo qayle iyo habaar baan la daba joogaya ka socon mayso orodna ma ku gaari kartidba maxaa laga rabaa inaad duco la daba fadhiiso waa silix li fi dhurriyyati waa arinta afraad inni tubtu ilayka waan ku toobad kaanay oo 40 goor miyaan toobada laga doonahayn 3 weeyaan nolosheenu laba waad soo goysay imaka hoobad baa tahay dalcad baad ka sii dhaadhacaysa عمري تجي عيب لقوا مسكوتيو حساب تموي إني تبت إليك أنا محيك سوق بجودي وإني من المسلمين مركب ورا المسلمين توات كم بدها وإني من المسلمين ماشي واحد كنت تفصيل كمجمل كأه إن هذا أمة دماء ما كوف فكرته قبيل ما هي حاس هوسي عرور يا مكلية ما تاس نواتا والدكم حورنا لا عرورته ودعيان هبارك كإلاليان معلمكم أدو سوير يا ما وحوجي يراد لقوا سوير عليو ha oranin ma maanta wixii yaraabay kugu soo eriyay hal xamanin
وصح واجب كقول معلم كورة دوقات أما هذا المناقصة كله وحلاقي بوالدين تقار إني سدح شر أما الله بتشري مدان مدرسة ده مركا إن تهدا إن كلا يستلان أما إن كيسة وحاجة يقول له صوير رفته أما لا صويريو لكن مدرسة الدور شر كالي سلاي ما كبيد كم مقطع عقوسه ختم لها سيدنا عمر رضي الله عنه أيها وحى سليم الله بيسلالي ويليو أبيه وحو أبيه هو أشكتوني يا وحو كويلي إن كان وايدي دنيها وإلمهايدي واي إنك هذا العجيب شيء وحوري يا أمير المؤمنين هل يعق الوالد ولده هذا المعنى أبوه أما والدك علمي سعاق ما كنا قنكرا هابوي حاكم ذا أما حقوق ما كل إياه علمه أبيه هاو كل يقول حاكم ذا سيدنا عمر وحو خصوصي لو رحمه حاكم ذا بويلي إنه هو وناكسن وبورسده ومد لابا إنه المقع وناكسن وبحيه وصدح وأن يعلم دينه دينتي سنين وبرو إنك واسوب ودوح كل يا أمير المؤمنين أبهي وحبئي مطهرين صدح لا أتيجي سنة وحبئي كما قبلين مدوي أنا قبل سنشيد ودمر مدمدوي أضون هايو ملا السودانية دقي شري أولي بمشوسد تاسو يقعد على يقول وشيء ثاني وسماني شعلانا أو شعل وحيقول مقعد يقول الحار والوال ما عبد الرحمن فارح يجد ما نعم وما علمني حرفا دين وحبيك ما برن سيدنا عمر انتو كم رجودي وكتشي سوي انت تضوع عاق نقطة هذه ما كسوش كتونيس وأود عيننا منظر كان عروض وبارجنا الله يدين بركيه إن الدعاء نقطان أن تجمعوا بين الدعوة والعلم أفر تاسي تربية كترتا يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والدعاء معلمين تينا إلهي وحكبر يا سبحانه وتعالى أبارتن ديراتين ونقصو جبيو أبارت الله ينقصو جبيو دنبي النيبا إنها إلهي سبحانه وتعالى أبارت ينقصو جبيو إلهي رحمة ديس هينوسو ددتشيو إلهي الدنبي إنه مقاضه اللهم لا تحرمنا بصالح ما عندك بسوء ما عندنا إلهي عروتها يرير قلين قوين تا دنبي لهين إلهي نقصو ورابي إلهي القرآن كاجبان كتب وصلنا بيت كاجنا واتشونا نقصو ورابي الله يوم عفي بشهر رمضان عافماد إله ونوجارسي أرددنا عوائق ذا إيو شيطان كلهم بإله وكإلهي معلمين تنا أبالك إلهي وكقدن إننا لمانتي الله يسوكين وذدم الله فوق هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا